السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحيران يوتيوب كا برنسس شيماء سو دوادا ما أنت حني وضع ما أها challenge ما أها رواية وحني وضع قصة آد وحنون بدن يكون عدي جبر ولا شيء مرنا صاحبتي أو آد أنسكو درنا هاي gabadhaas oo qiso ila soo wadaagtay anigana ay waxaan damcay inaan aan jeclaystay inaan iniga nila soo nila wadaago qisadaas intaan horta sii guda gelin waxaan iga codsanayaa baryay taagan tahay like-ga share-ka comment-ka inaad igu gambaleelkana furataan haddaad ku cusban tahay gambaleelka furo sidaad fiidiyoyaasheena mar walbo ay kugu soo dhacaan qisadaaseyta waxaa waaye gabadh yar waxay ahayd oo iskuuley ah qisada ay ku dhacday gabadha marka ayada ah iskuulkay akhrisanaysay waxay ahayd maaragtay form 1 waa fahmi kartaan aan u maleeyaa dugsiga koowaad marka gabadhii ayada ahayd iyadoo dugsiga koowaad ay waxbarashadeeda marayso labada waalid oo xaggeeda iyo xagga wiilka wada hadleen wiilkana waa walaalo يعني هردين هذالك ويلكي أيضا وإلما هبرد لبا دالته دشود مركي ويلكي أيضا ما أوجين ويلكنا موسى أوجين ويلكو كوينا قبل ويرد نكن وين وها مركا فاميلي حاجة ماركتي قبل داس ولا شيء قبل داس أنا خبرته أحد ما مدي ويلك دشاده هسا أنا حلا جعلستي إن ويلكي يكون درسه maamada gabadha dhashana way ka xishootay inay dhahdo gabadheedu kuma siin karo because waa walaalo laba walaalo ah waayo gabadhi way siisay waxay dhahday waxa aad bixisay waa sida anigoo bixiyay camal gabadhi sidii wiilka lagu siiyay doonis ma aha wala ma aha meher wixii oo dhan hal mar la iskaga la dhigay gabadhi wiilka isbaranin gabadhi wiilkii oo maaragtay isfahmin arrintii ayada ahayd maaragtay aroos la dhahay oo degdeg ah gabadhii aad u ooynayso oo u qaraacsan ay imaatay abaayo arrintaas ay ugu dhacday maxaan suubiyaa maaragtay hooyana saas ay leedahay waalidkiisaas uu leeyahay gabadha abaheed uu dhintay walaaladeedii hooyadeed bis ha joogeen gabadha adiga calaay taxaal waxba hadalkaan igu sii dheereenin way guri gashay waa la aroosay arooskeeda ay gashay iyadoon ku qanacsaneen oo guurka ku qanacsaneen haba aroosatee maxaa ka imaada waaya aroos lagu degay oo hor socod yeeshay muu noqday misane aroos soo afjarmay oo arrintii hadee sidii qooley qorqabad biyo kuma cabtada la sheegay arrintii sidii gabadha lagu guri geliyay may ka imaata waay gabadha waxaa ku dhacday inay guurkii ku degi wayso oo ayadii oo markii hore wala soo qorqabtay oo qorqabadkii waalidkii ducadiisa ka qaadatay ayaa haddana waxay la kulantay wiji horle oo wiilka xaqiisa ay kala kulantay oo gumeesi uu leeyahay aqabadooyin badan dib badan ee gabadhi meesha kala kulantay gabadhii oo hadalkeeda meesha laga tixgelinaynin sida gabar gurigeeda camal loo xishmadeynaynin gabar laag gurigeeda haysata camal loo xishmadeynaynin waxyaalo badan ay meesha kala kulantay familiga gabadhan ay reer tabareeda iska hayn dad lacag haysta ma ahayn familiga wiilkan ay hadee farahan ilaahay ma simine maamadii wiilka dhashaa naagta hajirad ahayd oo maasha Allah ah oo bilyoneer ah maamadii wiilka dhashay gabadhan waxaa la dhex dejiyay familiga dhexdiisa gabadha ayada ahayd waxay aqabadooyin badan meesha kala kulanto anigana aan waaniyo oo waalidka deewa maato hooyadeed ahna ee dhaadanaya walaashay waaye waa habaryarta marna waa sadohdaada bal caga dhigo ani hay ceebeynin ceeb ha ii soo jiidin gabadhaadi way gubatay xagga intay ku ceemanay ilaahay iska bariyaan dhihi jiray abaayo dhib malaha adduunkan waasaan waan waanin jir waanadii ani waxaan damcay inay horta gurigeeda ay guri burwaaqo soor ku noqoto ay guri kusii ladnaato ay noqoto laakiin ilaahay ma dhihin ayadana markaan waaniyo alxamdulilah ilaahay khayr ha siiyo way iga qaadan jirtay waanadayda qofka kaliya ku soo ooyni jirtay ilaahay ka sokow anigu ahaa marka gabadhi ayada ahayd waxay samirta bay gurigeeda iskaga dul qaadato uur bay yeelatay uurka ay yeelatay ninkii ma ogo ninka waa nin muqayl ah ninkii ma ogo inay gabadhi uur yeelatay gabadhi waa gabar yar uurkii ma taqaano ani way iga fogtahay imay soo sheegin waa xanuunsana qandhay madax xanuun bay sheeganaysa ilaahay amarkiis anay ma ba haleelin inaan dhaho uur iska soo baar
gabadhii ayadoo iska xanuunsan bay damacday inay kursiyaha jijiido gurigii nadaafadiisii wixii ay qabato adi ilaahay ma qorin meeshii ubad ay maaragtay dhabteeda saaratay inay meesha ka hesho cunugiyaa kasoo halaabay cunug hadduu kasoo halaabay waxay u malaysay caadadii oo ku dhacday way la xanuunsatay istaal bay isgeysay ayadaa isgeysay wax geeya malaha ayadaa isgeysay markay aaday istaalka waxaa la dheenaa heedhe waxa kaa socdo waa ilmo cunugaa kaa soo dhacay waxaa u baahantay in lagaa soo haaqo xinjirahaas iyo waxaas waxay dhahday arrin lama filaanay ku noqotay ee la yaabtay Nairobi aa la dhahay aad ayada meel tuulay joogtay Nairobi ay imaatay markay Nairobi imaatay adiga meesha ilmihii laga soo haaqay ay maaragtay meesha xanuuno badan oo isbedel ay meesha ka heshay xanuunihii badnaa ay meesha ka heshay waxaan dhahay quraan isa saar maaragtay ilaahay qalbigaada dejina insha Allah iska maaragtay gurigaada iskaga noqo iska samir dib malaha wuxuu ilaahay kaaga farxiyo insha Allah waad helaysaa adi calaay taxaal gabadhii ayada ahayd guurkeedu way u samirtay laakiin ninkii baa wax loo samro noqon waaye dabba guriga dhexdiisa ku shidan ninkii 9 saac habeenimo waa nin qayla 9 saac habeenimo u imaanaya maaragtay hadday hadasho hadalkeeda hor socod ma laha qof guriga laga tixgelinayo may noqonin hadday dhahdo bal fadhiisani adiga gurigan ee maanta wada leh inaa hadal iska maqalnaa fiican hadaa qiilayso gurigaada ku qiil nin mas'uulaad tahay nin weynaa tahay sida hore mati dhalinyaranimada iska dhaafata hadaa iga weyn tahay hadda qof mas'uul qaadaa tahay wuxuu leenahay waa idab daranta asxaabteeda maarta inay iga soo dhex bixisid asxaabteeda la qiilaya xagga ii dhaaf ayadoo iska murugaysanay iska seexanaysa marmar hataa waxay noqonaysaa inay ciil ka noqoto way fahanteen oo malaya calaay taxaal waxaa dhacday gabadhii arrinta iyada ahayd inuu dil ku darsado wiilkii uu canaadsigii gacan qaad ay noqoto maalmaha kamid ah waxyaalaha hadal isla dhaafeen oo qoys dhexdiisa diwaad garanaysaa nin inaagis qabaan wax walba way isdhahan arrintii gacan qaad haday gaartay wuu dilay way soo carootay way imaatay waa la celiyay mar labaad uu dilay waxay dhahday kuma noqonayo xaaraan uu iga yahay haddaa cir la galayo dhul haddii la galaba ninkaas ee xaaraan uu iga yahay wax walba waan suubina way diiday hooyadeeda waanisay annagaa waalina asxaabtaa waanisay way diiday waxay dhahday dhibkaan qaba anaa og aniga ilaahay og mana ku noqonayo ninkaas hadday gaajo tahayna gaajaan u dhinto hadduu ilaahay ii qori nimco lahay nimcada seeta hor aan ka raadsanahay laakiin hadduu qeyr yahay qeyrkiisa asaga hala haro wiilkii asaga ahaa muu kasoo dabagelin gabadhii waxba muu soo raadinin waxba umuu soo sheeganin maamadiina ay mar hadday celisay mar labaad loo imaan waaye ayadana way aragtay inay gabadheeda laga qaldan yahay way iska aamustay way damacday inay celisay gabadhii way diiday muddo 5 bilood ay gurigooda ku noolaatay oo la soo raadinin waxna la isku geysanin markuu arkay arrintan arrin serious ah waaye ee dhahday meherkeygaan raba ani waxaan rabaa waraaqdii oo qalalan oo lahayn meherkeedii waxeeda waa dhacdooyinkaneeta gabadhan walaasha waxa ku dhacay gabdho Soomaaliyeed badan way qabsadeen arrintaas eetada hooyooyin Soomaalina way suubiyeen maaragtay qaladaadtan camal gabadha ayada ahayd waxa ku dhacday inay maaragtay dulan la dulmiyo qof dulansan ay noqotay waa la dulmiyay waxay ka dulansan tahay dhinaca hooyada waxay ka dulansan tahay dhinaca habaryarta waxay ka dulansan tahay dhinaca ninkii saddexda dhinacba gabadhii dulan ay meesha seeta laga dulmiyay laakiin qof walbo oo dulansanay maalinta aan ahayn buu ilaahay u hiilinayaa way faanteen oo malay asxaabta way maqlaysaan oo malay gabadhii waa la furay meherkeedina lama siinin waa dulankii kala haddana dulan guri u ahaa dulan lagu qasbay nin u ahaa dulankii saddexaad haddana gabadhaas u imaaday oo la dulmiyay wuxuu ahaa in meherkeeda loo diido meherkeeda maadaama loo diiday waxay tiri meherna kama rabo waraaqdeeda hadaan ka helay alxamdulillah gabadhii xanuunsan oo depression ku dhacay oo fikirtay oo murugsan gurigeeda ka soo tagtay oo haddana furniinka ayada wayba dalbatay haddana xaqeedii la siinin oo dahabkii hataa uu u gaday u ka reebtay asxaabay waad maqlaysaan oo malaya dahabkii oo arooskeedii iyo maaragtay ayadii lagu xalaalsaday uu ka reebtay alaabti guriga ee wax ay ka soo qaadatay lahayn waxay ka soo qaadatay kali ah dharkeeda hataa hadiyadii hooyadeed ay siisay ama asxaabtay u geeyeen hataa ma la siinin gabadha sida u dulan loo dulmiyay gabdho badan oo Soomaali ah hooyooyinkoodana
dhibkaas way u geysteen dulankaas camal naay way dhacdaa oo wayna dhacday dad badan ayna ku dhacday gabdho badan ay ku dhacday qaar hadda tan alxamdulilah labda cunugaas ka soo dhacay qeyr bay u ahayd labda cunugaas ka soo dhacay qeyr bay u ahayd because waxaa dhacday inay maaragtay inay maaragtay cunugaas ka soo dhaco qeyr bay u ahayd because waxay ugu ahayd waxaa waay maanta hadday ayadoo reer tabareed ay ka dhalatay gabadhiina gabar jira hadda oo kusoo siyaaday ay noqotay maaragtay hadday ilmo ay haysan lahayd inkastoo ruux walbo israaqadiisa ilaahay haayo ubad haddana ay kusii rafaadi lahayd oo singolmaada ay noqon lahayd ayna shaqaysan karin ayadina ay jiran tahay dhib weynay u noqon lahayd sax marka hadda waxaan inta uu soo fadhiisiyay maxaa waay arrintaas xanuunka badan oo oohinta badan oo qiirada badan inaan nila wadaago hooyooyin badan oo Soomaali ah oo hooyooyinkeena ah oo maaragtay inay dulmiyaan gabdhahooda ay maaragtay ku qasbaan wax farxad gelinaynin waxyaalo badan dhib badan aysan ogeen gabadhaada maxay kala kulmi doontaa guurkan aad ku qasbaysid maxaa ay ka heli doontaa waxaa fiican gabadhaada inaa fadhiisiisid hooyo dhibkan maa ku haystaa maadaama qalad fast u kaa dhacay oo ku qasabtay horta oohinta gabadha dhegayso maqal dhibkaada qof walbo oo dhib qabo qof daqran haddaa aragtidaa la dhehe ha u hiilinin qof caloosha daba taala maa ka dambaysaa ma ogid because adi haddadaa dhahdid gabadhayda 24 saac afka qabanaya waa canaadka gabadhaas maxay ka imaan karaa waxyaalo badan dhib badanaa ka imaan karaa inay isdisho inay maaragtay dhib badan ay ka keentaa ka dhici kartaa depression ku furmani kara marka asxaabta oo qaaliga ah waxaan jeclaystay inaan nila soo wadaago qisadaas xanuunka badan oo oohinta badan oo inigana wax walba qisooyinka iyo waxyaalaha aad ii haysaan aad ila soo wadaagtaan comment-ka ay ugu soo qortaan share-ka like-ga comment-ka gambaleelka inaad furantaan haddaad igu cusban tahay maalin walba oo jimco ahnaay qisooyin waa nii keenaya insha allah waa nila socdaa waa isla wada jiraynaa insha allah marka waxaa ogaanaysaan waa walaashin Princess Shayma kusoo dhawaada youtube-ka cusuban oo iniga daraadiinaan meeshaan usoo fadhiista oo nii furay asxaabta qaaliga